soo diray xeryaha Dhadhaab wariyaheena xeryaha Dhadhaab Cabdi Yuusuf. musharax xildhibaan siyaad tobanaha aadan ayaa dardaaran iyo bogaadin u soo jeediyay shirkii wadatashiga qaran ee dhowaan lagu soo gabagabeeyay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho, isagoo kula dardaarmay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo dhammaan saaxiibada u dhacayso sheekadu in ay si qiimo badan u soo gabagabeeyaan una hagaan una jeediyaan dalka Soomaaliya doorasho xor iyo xalaal ah laguna qanacsan yahay. beelo walaalo ah oo dego dalka Kenya gaar ahaan gobolkani Tana River oo dhowaan u dhaxeeyay qalalaas ayaa lagu soo gabagabeeyay, waxaana halkaasi lagu dhameeyay dhibaatadii u dhaxaysay ayagoo wax walba uga wada hadlay miis korkiisa. soo noqod wanaagsan idilkiinba meel walbood naga daawanaysaan, kuna soo dhawaada wararkii faahfaahsan. sida wararkeena horeba ku daawateen, xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyeen warbaahintan cusub ee Wama, waxaana warar amuurtaasi ku saabsan inoo soo diray wariyaheena xeryaha qaxootiga Dhadhaab Cabdi Yuusuf. soo dhaw Cabdi Nuuriye Aadan waa mid ka mid ah gudida xarada qaxootiga Xagadheera. hadaladiisa waxaa ka mid ah: bismillaahir rahmaanir rahiim. magacayda waxaa la yiraahdaa Cabdi Nuuriye Aadan, waxaan deganahay xarada la yiraahdo Xagadheere. waxaan ahay gudoomiyaha Xagadheeraan ahay. waxaan baliyaynayaa Wama TV waxaan baliyaynayaa. magacaydana waa Cabdi Nuuriye. Cabdi Nuuriye Aadan, waxaad sheegtay inaad ka tirsan tahay gudida xarada qaxootiga Xagadheera. sidee u aragtaa warbaahintan cusub Wama Somali TV? waxaan u arkaa inay aad u mahadinayno oo oo soo baxda ay noqon doonto oo si fiican oo warbaahinta ay u geli doonto, sidaasaan malaynaya. maxay isbedel ay keeni kartaa ay ku keeni kartaa bulshada Soomaaliyeed? bulshada Soomaaliyeed in lagu reesanayo oo si fiican wanaagsan ay u baahaynayna yaan u arkaya. walaal adigana soo dhawow, adigoo magacaada ku bilaabayo. anigoo Maxamed Cabdi Aadan oo joogo xafad magaalada Xagadheer, qaxootiga Xagadheer anoo joogo. sideed u aragtaa warbaahintan cusub ee hadda la soo saaray Wama Somali TV? idaacadan hadda soo saaray maxaa u arkaa idaacad wanaagsan oo horumar ee Soomaaliya dhan kasta ay joogto horumar ay u tahay. maxay isbedel ay ku keeni kartaa bulshada Soomaaliyeed? bulshada Soomaaliyeed maxay u keeni kartaa horumar iyo bashbashi barwaaqa. walaal adigana soo dhawow, adigoo magacaada ku bilaabayo. maasha Allah, waan soo dhawaaday. aniga magacayda waxaa la dhahaa Qaali Macalin la dhahaa. qaxootiga Xagadheer baa jooga. maasha Allah waan ku faraxsanahay. Qaali Macalin, sidee u aragtaa warbaahintan cusub ee hadda la soo saaray ama hadda soo baxday? sidee u aragtaa Wama Somali TV? waan ku faraxsanahay. maasha Allah. walaal adigana soo dhawow, sideed u aragtaa warbaahintan cusub ee adigoo magacaada ku bilaabayo? aniga magacayga waxaa waa Shaaciye Saleemaan Xasan. waxaan u arkaa idaacadda waan ku faraxsanahay, waana soo dhaweynayaa. sidee u aragtaa idaacadan, maxay isbedel u keeni kartaa bulshada Soomaaliyeed? isbedel badan bay u keeni kartaa bulshada Soomaaliyeed. maasha Allah, waan ku faraxsanahay. Aadan Cali Nuuriye waa mid ka mid ah dhalinyarta qaxootiga Xagadheera. aadan soo dhawow. waan dhawahay walaalo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. magacayga waa Aadan Cumar Nuuriye, waxaan joogaa xerada qaxootiga Xagadheera. aadan, sidee u aragtaa warbaahintan cusub Wama Somali TV? Wama Somali TV waa soo dhaweynaya, gacan furan kusoo dhawaa leeyahay. bulshada badan waxtar badan ayay u tari doontaa insha Allah. maxay isbedel u keeni kartaa Wama Somali TV? Wama Somali TV isbedel weyn ay keeni doontaa insha Allah. bulshooyinka weyn ee Soomaaliya ku nool xerada qaxootiga Xagadheera wax badan ayay u tari doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo. waana soo dhaweynaya. walaal soo dhawow, adigoo magacaada ku bilaabayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاي محل أحمد عبد نوري وندوهاي حريق قحوتي محن جوا Xagadheera. أحمد، sideed u aragtaa warbaahintan cusub Wama Somali TV? Wama Somali TV waa soo dhaweynaya, gacmo furan kusoo dhawaanayaan bulshada waxtar badan.
kaasi wuxuu ahaa waryaheena nooga soo warrama xeryaha Dhadhaab Cabdi Yuusuf Salaad. hadeerna ku soo dhawaada musharax Siyaad Tobane Aadan oo u jeediyey dardaaran iyo bogaadin dhammaan golaha wadatashiga qaran shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay caasimadda dalka ee Muqdisho. Siyaad. bismillah waa walaalkiina wiilkiina maskiinkii alle samawade Siyaad Tobane Aadan. farxad ayay ii tahay inaan fursaddan dahabiga ah la qaybsado walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida daafeeda ka joogaan. waa alle mahadii maanta waxaa la soo gabagabeeyey shirkii wadatashiga qaran ee looga arrinsanayay arrimaha doorashada waddanka. wuxuu ahaa kulan taariikhi ah oo in badan la wada sugayay. wuxuu ahaa kulan rajo badan laga qabay in ay wax wanaagsan ka soo baxaan oo maqalka iyo degaha ummadda Soomaaliyeed dhammaan u roon. dhowrkii maalmood oo uu shirka socday ee u dhaxeeyay madaxda dowladda federaalka oo uu horkacayay horseedka ka ahaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir waxay muujiyeen xilkasnimo, dulqaad, bisaal siyaasadeed, tanaasul iyo Soomaalinimo. waxaa ii muuqato rajo wanaagsan iyo Soomaali nabdoon oo horumartay. iftiin baa baxayo, nuur calaa nuur waaye. waxaan leeyahay maanta waa maalin wacan oo wanaagsan, waa maalin weyn oo wanaag badan, waa maalin aan wada sugayno Soomaali idilkeed u dabaaldegaysay. xaqiiqtii waa maalin muhiimad gaar ah ii leh aniga ka shakhsi ahaan, waayo heshiiska madaxda Soomaaliyeed ayaa dan noogu jirto. danteena waa heshiiska madaxda Soomaaliyeed ay gaartay. Soomaali markay heshiiso waxay dan ugu jirtaa shacabka iyo dhalinyarada oo aniga aan ku kacahay. waayo waxaan wada ognahay dab, sida Soomaali ay sheegto, dab ninkii ku gubtaa dareema xanuunkiisa. waxaan rajaynayaa Soomaali inaysan xiiso u qabin dagaal, burbur, barakac, khilaaf iyo wixii la mid ah. waxaana leeyahay wixii horay aan u soo marnay oo dhibaato ah diiwaanka ha nalagu xareeyo, taariikhda ha noo gasho, cashirna aan ka baranno insha Allah. waa cashir nagu filan haddii aan garaad leenahay Soomaaliyeed. waryaheena Cabdimaalik ibnu Marwaan aad buu mahadsan yahay waryahanaga Cabdimaalik ibnu Marwaan oo warkaasi nooga soo dirayay gobolka Tana River. warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo iyo gunaanad u ahayd warkii warbaahinta Waamo aan si toos ah idinkugu soo gudbinayay stuudiyaha uu ku leeyahay gobolkani Washington. intaan warkani warka xiga ku kulmi doono anigoo ah Qoraadan Barre waxaan idin leeyahay fi amaanillah.